قضب خبيها أتي عن كور رمض هوي نرشي ويبيو وواحد مرور الله مارمين نرش وسجى يكمل عملتها تذكر كل كهيانة وبهاي إلى الشغل كي كم غنت هنا إلا وجود له مهم مركز كور إنه مدبر بالجو رمي بيها قبل هذا يو أنا كردوي هندي دمج قبل هذا مركز كور إنه وأنا كربي بديه أنت أنا فرا ولا قلت له هرجي سوق عليه تي مدبر بشغل السعوديس كمان يدرجين ولي والله عبنا يا dadka dayantaa iyo dadka jilicsan iyo agoomaha iyo dadkaas iyo wixii aan haynin waxaan u balanayaa horta wax qorshe loo sameeyay ma jiro in qorshayaasha wax loogu daro biyaha iyo waxbarashooyinka waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha ah sidoo waa muhiim marka kii lacagta haystay cabanayo ilaa kama badhigin macallin lacagta markuu bixiyo kama dhigin deeka kale waxaan filayaa inaan isaga hadalkiisu wada isaga soo qaataan lahayn marka waxaanu leenahay ilaahay bal bariyana biyaha inuu noo barakeeyo in gaarsiiyo bal waana intaas oo sanadoodna wixii way soconayaan haddana halkaynu doonaynay may gaarin taa waxaan u baahanahay in dadaalka la sii laabo meesha ay wax ka sida yihiin oo la ogaado dawladda kulay qabiyo weeyaan oo saa ku dhamaan mayso oo kulay mar la wada heli maayo sabir bay u baahan tahay dadaal loo u baahan tahay oo 30 sanadood ila biya laga shaqeynaya dal la dhalgi waayo waa mushkilad taasi waa ta gobolada meel kasta baa noqotay dhulka dibadda dawoo kala mudan yahay oo dhul biyo iyo dhul aan biyo lahayn buu leeyahay dhul baa biyo qaraadh oo haday barwaaqo tahay biyo qaraadh laga cabaa hadday doogto abaartayna biyo qaraadh laga cabaa kuwaas waa gurbad gaar u baahan yahay waayo dadka biyo qaraadh cabaya marka barwaaqada iyo marka kale way dhiman yihiin kuwaas aad bay u dhiman yihiin dadkaas in biyahaas loo raadiyo ama loo xidho dhaama loo xidho ama dee biyo macaan loo doono dhulka looga doono hoostiisa ayay u baahan yihiin imikana abaar baa jirto kii qaraarana badhbaa waa la waayay marka waxaan soo jeedin lahaa wasaaradda biyaha dhulka abaar baa ka jira abaar iyo cunto xumo iyo biyo la'aan hadday israacadaan halisteeda la leeyahay inay dhulka u baxdo oo dhulka balorta haraad inaan loogu baktiin dhulka inay marto xeebaha iyo dhulka waxa weeye bariga iyo hawdka iyo marto dhulka oo riiga dhulba yaan biyo la'aan una ceebteed noqon haraad in loo dhintee maadaama abaar iyo ay jiraan iyo biyo la'aaniba iyo cunto xumaba dhulka in la maro waqtigii riigaga la taagi jiray ee dhulka haraadan dadka laga gaari jiray riigag waqtigu waa jiilaal runtii ilaahay haddaan inaga soo furo waqti adag baa lagu jiraa waxaynu u baahannahay inay aad u shaqayso oo cid dirto oo dhulka sida biyo la'aantu u kala xun tahay loo maro oo dadka riigag loo taago oo laga hawlgalo sidii riigag loogu taagi lahaa taana intaasaan kaga gudbayaa biyaha waa qaybaha kala duwan oo marka roobka biyaha socda biyo nafci leh oo laga faa'iido lahaa oo wax badan loo adeegsan lahaa oo wax lagu beeran lahaa oo la cabi lahaa ayaa dhulka mara biyaha qudhoodna waxay u baahan yihiin ilaahay ma bal loo sii diyaar garoobo ilaahay markuu roob keeno aan sidii hore loo sii deynay waa tan ictiraafyada iyo soconayaan iyo maalgashiyada iyo hawlaha ay soo fool leeyihiin sidaynu wax ku qabsano aynu hada wax qabsano ayna biyo la'aan inana la soo taagnaan oo ayna dadka ictiraafkana biyo weydiintii meel walba hadaynu ka galayna ku dhino waa mushkiladii biyahan ina dhaafaya aynu ceshano
wixii kale aynu weydiisano ictiraafka iyo de wixii naga maqan aynu dadka weydiisano laakiin wixii dhex marayay aynu qabsano ka shaqaysano